kulanti wanaagsan daawadayaal waa barnaamijkeennii qubanaha VOA oo ay si wada jir idinla socodsiinayaan anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga. qodobada toddobaadkan barnaamijkan idinku haynana waxaa ka mid ah macnaha ka dambeeya sii deynta ay dawladda Itoobiya sii deynayso maxaabiis uu ku jiro hogaamiyaha sare oo ka tirsan qowmiyadda Oromada. koox habla ah oo Hargeysa ka ururiya taayirada la isticmaalay kadibna ka dhiga agabka guryaha lagu qurxiyo. Muqdishona taleefanada gacanta oo suuqa ka saaraya shaqo la'aan ka dhigay footooyinkii la isku sawiri jiray. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena qubanaha VOA-da ee toddobaadkan. aan ku bilownay dawladda Itoobiya ayaa ooda ka qaaday maxaabiis badan oo uu ku jiro hogaamiye ka tirsan mucaaradka Oromada oo lagu magacaabo Mireya Gudina. Talaabadan ayay dawladdu ku doonaysaa in ay ku qaboojiso xiisadda iyo qulqulatooyinka Itoobiya ka socda. Haddaba sidee loo arkaa sii deynta maxaabiistan? waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay Xirsi Cabdiqaadir Maxamed oo ka tirsanaan jiray baarlamaanka Itoobiya haddana ku sugan gobolka South Dakota ee dalka Mareykanka. Xirsi, maxay sii deynta maxaabiistan ay la micno tahay? Sidee dadka Itoobiya iyo guud ahaan dadka siyaasadda gobolka la socdaahi ay u arkaan? walaal arrintani waa arrin la dhihi karo waa horumar ama siyaasadda Itoobiya ku cusub. dadkuna aad bay u soo dhaweeyeen dad badan oo u xidhnaa dawladda oo uu ka mid yahay Dr. Marara Gudina oo ah xubin caanka ah oo dawladda Itoobiya iyo dalka Itoobiya oo dhanba ayaa ku jira dadka la sii daayay. marka waa arrin la dhihi karo waa progress ku cusub siyaasadda dalka Itoobiya. waxaa la sheegay in inkastoo boqolaal la sii deynaya haddana ay jiraan tiro badan oo mucaaradka ah oo eeda loo haysto oo iyagoo aan ka mid ka ahayn kuwan la sii deynaya. maxay kala yihiin kuwa la sii daayay iyo kuwa aan la sii deynin? hadda waxaa igu maqaalaa dadka la sii daayay waxay u badan yihiin qowmiyadda koonfurta oo ah qowmiyadaha faraha badan ee isku tegay Southern Nation Nationality and Peoples Region la yidhaahdo. dadka Soomaaliduna ay yidhaahdaan waa koonfurta Ethiopia ayay u badan yihiin. qayb ka midana waa Oromo. weli dadka hadda la sii daayay kuma jiraan qowmiyadda Axmaarada, laakiinse waxay u badan yihiin qowmiyadda koonfurta. Oromaduna way ku jiraan dad magac leh oo sida Dr. Marara Gudina ay ku sheegayay baa ku jira. marka maxaa laga filayaa hadda? xagee halkan ay ka aadaysaa tani? ma yareynaysaa xasaradii ka taagnayd Itoobiya? gaar ahaan Oromadoo kale aaday u dhidhinayeen oo ay u kacsanaayeen xiisadihii dhulka Oromada ka jiray. ma dejinaysaa sii deyntan? maxayse tahay tallaabada xigta? run ahaantii way dejinaysaa maya iyo haa midna kuma dhihi karo. maxaa yeelay waxyaabaha ay dalbanahayaan waa ay ka waaweyn yihiin in dad iyaga u xidhan oo qowmiyaddooda in la sii daayo keliya. laakiinse waxaa la dhihi karaa at least waa pain killer. macnaha waa xanuun baabiye. waa la sii daayay dad, laakiinse waxaan filaynaa in ay dadku ay soo dhaweyn doonaan. laakiinse waxyaabaha ay dawladda ka filahayaan iyo rabitaanka waxyaabaha ay dalbanahayaan way ka weyntaa arrintaas. aad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa Xirsi Cabdiqaadir Maxamed oo ka tirsanaan jiray baarlamaanka Ethiopia oo isagoo ku sugan gobolka South Dakota ee dalkan Mareykanka qadka Skype-ka noogu waramayay. sharkadaha basaska iyo weliba dadweynaha gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa sheegaya inay saameyn dhinaca safarka iyo weliba ganacsiga ku reebayso go'aankii ay dawladda Kenya dhawaan ku joojisay basaska habeenkii safri jiray si loo baajiyo shilalka gaadiidka. warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Yaasiin Ciise Wardheere. toddobaadkii tagay waxaa dalka Kenya laga mamnuucay safarka habeenkii gaadiidka dadweynaha qaada kadib markii ay shilal ku bateen. madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa kala diray golaha adeegyada gaadiidka qaranka ee loo yaqaano NTSA kadibna hawlihii lagu wareejiyey ciidanka ilaalada traafikada booliiska oo hawlahaasi iyagu si joogta ula soconaya.
dadweynaha gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa inta badan safarkoodu waxa uu ahaa mid ay safraan habeenkii iyadoo dadku ay subaxii ku waabariistaan shaqooyinkooda hase yeeshee shirkadaha gaadiidka gaar ahaan basaska dadka qaada oo laga mamnuucay inay habeenkii safraan ayaa dadku aragti kala duwan ay ka samaynayaan iyagoo qaarkood ay aad uga walaacsan yihiin safarka habeenkii oo aad ay u jeclaayeen maamulaha shirkadda gaadiidka dadku ay raacaan ee alma ayaa arrintaasi isagu walaac ka muujinaya shaqooyinkoodii intay niska hore dhammaystaan niska dambe ku xisaabtami jiray inay baxaan hadda waxay ku noqotay caqabad aad iyo aad u culus marka dawladda haddii nidaam kale ay keeni lahayd nidaam ka fiican yaa aad dadka loogu farxi lahaa laakiin hadda nidaamkan laguma faraxsano qaar ka mid a rakaabka u safraya gobolka waqooyi bari xilliga maalinimada ah oo ka bilowda 6 aroornimo ilaa iyo 2 duhurnimo ayaa waxa ay qaarkood ka cabanayaan dhaqdhaqaaqii ganacsiga in xayiraadda habeenkii lagu soo rogay ay saamayn ku yeelatay walow qaar kalena ay soo dhaweeyeen habeenkii safarka dhibaato badan buu leeyahay khaasatan dadka waqooyi bari u sarfayo marka maalinkii ay baa aad noogu wacan tahay inaan safarno oo aan safarkeena iyo danaheena soo gudano safarka habeenkii aniga oo kale waxaan ka shaqeeyaa xarun sabtidii iyo xadii baa fursad iyo inaan ehelkayga iyo dadkayga aan u tago marka safarkaasi habeenkii la joojiyay dhibaatooyinka ay ugu keenayso waxa marka casarkii oo kale ma bixi kari waxaan ku qasbanay inaan 8 saac iyo waqti ka hor aan baxo marka ma ii suurtagelayso marka ehelkayga booqashadii aan sabti iyo xad walba aan soo booqan jiray waa igu adkaanay yaasiin ciise wareere barnaamijka qubanaha toddobaadka ee VOA Nairobi magaalada Hargeysa koox dhalinyaro gabdho ah ayaa aasaasay ganacsi cusub oo ay ku ururinayaan lugaha baabuurta ee la tuuri jiray kadibna ka samaysanaya waxyaabo guryaha iyo waliba fadhiyada lagu quruxsado sheekadan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye agab tiro badan oo ay ka mid yihiin taayirada gaadiidku waxay ugu horeeyaan kuwa la daadiyo marka la isticmaalo hase ahaatee koox habla ah oo dhalinyaro ah ayaa Hargeysa ka bilaabay fikir hal abuur oo ay agabkaasi ugu bedelayaan hab anfac leh fadhiyada guryaha la dhigto iyo qalabka kale ee guryaha lagu qurxisto ayaa ka mid ah waxyaabaha ay ka sameeyaan taayirada gaadiidka kuwaas oo anfac iyo quruxba leh sida idinka muuqata muuqaaladan shaadiye xaashi cabdi waxay ka mid tahay 13 hablood ee fikirkani hal abuurka sameeyay waxaanay VOA uga warantay sida fikirkani ku dhashay fikirkan wuxuu ku dhashay arday wax dhigata ayaan ahayn markaas maalin ayaa waxa dhacday inay hal ardayad ku yimid xogaa habsan ka bacdi la weydiiyay haddii shirkado kale aan aasaasno sideed wax u xalin lahayd amba sideed u maareyn lahayd ka bacdi sidii bay ku timiday markii dambe xal waxa la isla gaaray in ardaydii oo dhan la wada weydiiyo haddii lagu yiraahdo shirkad baad leedahay xal xaalad degdeg ah ku timiday maxaad ku xalin lahayd ka bacdi inan kasta waxay ka dhex sheegtay meeshii ugu dambeyn markaan afkaartii isku wada darsanay baa waxa nagu soo dhacday fikrad ah inaan waxa ugu horeeya aan ka bilowno wax dhaqaalihiisa uu dhaqaale far badan naga baxaynin ka bacdi waxaan bilownay inaan xashiishka wadanka aan ka sii bilowno on alaabtan aad arkaysan hortiina aan ka sameeyno inta badan fikir kasta waxa uu u baahan yahay dhaqaale adag oo lagu bilaabo kaas oo suurta geliya in la hirgeliyo fikradaha noocan ah ee hal abuurka iyo ganacsiga isugu jira haddaba sidee ayay ku bilaabeen dhaqaalaha lagu hirgeliyay fikirkan ganacsi waxaan isku qorqornay dhaqaale wixii aan markaa u baahnayn xaaladaas waxayna noo noqotay lacag dhan $216 ka bacdi 216 ka gacanta kuma aanan haynin inan kasta 5.5 wax saasa ugu jirtay saadkeeda waa la isku dardaray lacagtii markii la helay ayaa la yiri ficilkii hal la sameeyo maalinba waxa noo kordhayay fikir cusub saas ayayna ku bilaabantay inaanu hawshii ku guda galno inkastoo hawsha shaqo ay qabtaan shahaadiye iyo asxaabteedu ay tahay mid u baahan warshado iyo agab kale oo fududeeya haddana gacantooda ayay ku qabtaan inay sameeyaan taayirada horta dhammaantood waxa weeyaan waxyaabaha laga bedelo baabuurta maaha taayiro cusub waa kole iska bedelo gaadhiga markii laga bedelo xashiish ahaan waa la tuuraa kaas baan ka soo qaadanaa ka bacdi waanu kala duduwanay qaar waxaan u isticmaalay inaan buush iyo maro lagu xidho iyagii qaar soo darkiisada waxa lagu duubay xadhigeena xiga ahaa xigi Soomaaliga ahaa aan ku duubnay oo ku xidhnay waxa soo dhan marka kan mid kasta waxaan u sameeynay design qurux badan oo anagu u doornay marka hawsha gashay yani tacabka fara badan alaabta quruxda badan la ka soo baxday
agabka ay ka sameeyaan qalabkan quruxda badan ayay shahaadiyey sheegtay inay gacmahooda ku soo ururiyaan oo ay goob walba oo magaalada ka mid ah oo lagu tuuray ay ka soo qaadaan waayaha bulshada ee jira ayaa sababaya inay adkaato in hablo isu tegeeya hawl sidaa u adag ay qabtaan waxaana jiray caqabado ka hor yimi kolley horta hawshaas tac fara badan baa galay hawl badan baa gashay caqabado badan baa naga hor yimid intaan sameynaynay waqtigayaga intii ugu badnayd baan usoo jarnay laakiin maanaan ka caajisin dadkoo kula yaabaya oo maxaa la yidhahdaa wax walba aad waayaysid kamaanaan caajisin hawsho adag baan u badheedhnay inaan qabanno waayo waxaanu hiigsanaynay meel cad oo aanu doonaynay inaanu gaadhno ilaa markii aanu gaadhnay ilaa markaan ku guda jirnayna maanaan dareensanayn hawsho intaa laga aadka u culus dhammaan alaabta la geliyo marka la samaynayo agabkani waa kuwa dalka laga helo haddaba sidee ayay dadku alaabtani u arkeen alaabta horta markii hore dadku arkeen aad bay uga heleen maasha allah wayna soo jiidatay indhahooda wax fara badan dad fara badanna way jeclaysteen inay naga soo dalbadaan qiimaha horta mid kasta intii ku baxday umaan anagu dul istaajinay waayo dadkan doonay inaan soo dhaweyno laakiin halkaana mushkilad yaroo kalaa ka dhex timida iyadana dadkii markii la yidhi waa xashiishba waxay u arkeen malaha inay wax yar meesha laga soo ururiyo keliyaata u yahay laakiin waxay iloobeen tacabkii faraha badnaayee laakiin qiimaha waxaan ugu talagalnay inuu ahaado wax aad boqolkiiba in fara badan yani boqolkiiba 50 aad uga hooseeya fadhiyada kale wadanka la keeno barkhad maxamuud kaariye qubanaha VOA Hargeysa magaalada muqdisho isticmaalka taleefanada casriga ah ayaa suuqa ka saaray footooyinkii loo isticmaali jiray sawirada in lagu galo milkiilayaasha xarumaha footooyinka ayaa sheegaya in tiknoolajiyadda casriga ah ay shaqo la'aan ka dhigtay sheekadan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste tan iyo intii magaalada muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya ay ku soo bateen taleefanada casriga ee loo yaqaano smartphone-ka waxaa meesha ka baxay howlihii shaqo ee dhalinyarada ka shaqaysata footooyinku ay bulshada u hayeen maadaama sawiradii ay qaadi jireen dhaqaalahana ka sameyn jireen booskoodii looga maarmay taleefanada smartphone-ka oo soo camiray suuqyada muqdisho kaasoo xilligan ay dadku sawirada isaga qaadaan waxaana taasi ay keentay in footooyinkii la iska xiro dhalintii ka shaqayn jirtayna ay wax la'aani la soo gudboonaato dadka waayadii hore waxay noogu imaan jireen iyagoo kooxo ama groups ama family ah sawirro badan aan ka qaadi jirnay sawiradaasna waxa ka heli jirnay dhaqaale kala duwan oo aad iyo aad u tiro badan oo kaafin kara noloshii qoyska laakiin hadda tan iyo markay soo baxeen taleefanada smartphones-ka dhaqaalihii hoos u dhaca ku yimid dadkii horeetana ma sawirno oo nooma imaadaan marka laga reebo dad iyo viisooyin caafimaad iyo teesarooyin waxyaabahaas raadinaya sidoo kale Yuusuf Ibraahim oo ka mid ah dadkii nolol maalmeedkoodu ay ku tiirsanayd adeegsiga meherada footooyinka ayaa si kooban uga warbixinaya isbeddelka waqtigan ku yimid footooyinka waa maxaa la shaqo la'aan way jirtaa oo dadkii ku shaqaysan jiray oo la soo darisay shaqo la'aan laakiin si kale haddii loo fiiriyo waxay ka dhigan tahay tiknoolajiyadii ay sameynayso horumar aad u ballaaran maadaama ay ku soo bateen si aad iyo aad u badan smartphones kala isticmaalay bulshada isticmaalaan Cismaan Sheekh Axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyaro badan oo aan kula kulmay beerta nabadda ee magaalada Muqdisho xilli ay halkaasi taleefanadooda sawirro isaga qaadayeen sidii loo helay taleefanadana waxa aad iyo aad gabaabsi u galay arrintii footooyinka oo ahayd arrin shaqo u ah dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed run ahaantii barigii hore waxaan sameyn jiray waxaan aad jirnay footooyinka aad jirnay ciyaalkan wada jirnay familkan wada jirnay anagu baa aad jirnay si macnaha aan album sameysano oo video ama se photo aan qaadano laakiin barigii dambe waxa soo baxay telefoon cusub baa imaaday smartphone baa imaaday meel cusub baa la sameeyay dhalinyaradii iyo familkii iyo waxay u wareegsadeen in telefoon ay qaataan dan macnaha isku sawiraan dan teleefankooda gashtaa inta album macnaha sameyn lahaayeen waxyaabaha keena hadda waxaa ka mid ah telefoonno waxaa la qaatay smartiya telefoonno shaashada tusaale kale tad markaa u baahan tahay telefoonka inaad musawir iskaga qaadid meesha rabtaa tagaysa ama beerta tagaysa waa la hormar wadankii waa la dhisay waxaa tagaysa oo kale badda sawirka hadaa u baahan tahay isla markii sawirkii iska qaadaysa sawirka adaa cadeysanayo adaa quruxsanayo meesha rabtaa ama sawirkii Facebook iyo meelahaas dhigaysa laakiin awalka hore dhibaatada lagu qabo waxay aad sawirka markii ka qaadaan footooyinka ay ka qaadaan waxa la sugaa waqtiyo maalmaha la sugaa xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho ergeyga midowga Afrika u fadhiya Mareykanka ayaa VOA-da u sheegtay in Afrika ay aad uga carootay hadaladii gafka ahaa ee lagu eedeeyay in Trump uu ku sifeeyay dadka qaaradda ka soo jeeda wariyaha VOA-da Cindy Sain ayaa warbixintan ka diyaarisay arrintaasi Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya
xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu adeegsaday luqad adag markii uu mudanayaasha Koongareeska la kulmay ay ka wada hadleen arrimaha soo galootiga. waxaan u malaynayaa inay arrintani ka mid tahay sababaha ay dadka Maraykanka ahi ku jecel yihiin waana sababta keentay inuu ku guulaysto talada aqalka cad ma aha qof raaca qoraal hore loo sii diyaariyey waa qof wax walba u sheega sida ay la tahay waxaana uu adeegsadaa mararka qaar luqad adag. dalalka Botswana, Ghana, Haiti, Namibia, Senegal iyo Midowga Afrika ayaa si rasmi ah u soo gudbiyay cabasho dhinaca diblomaasiyadda ah. danjiraha Midowga Afrika ee Maraykanka Arikana Giombari ayaa VOA-da u sheegtay in siyaasadda madaxweynaha Maraykanka ee uu wax walba ka horreysiinayo danta Maraykanka ay noqon karto caqabad hor timaada xidhiirka taariikhiga ah ee Maraykanka iyo qaaradda Afrika. It's a wound that's going to leave a very deep scar. And that's troubling for me. waa dhaawac ka tegi doona calaamad muuqata oo lagu xusuusto waana wax laga xumaado sababtoo ah anigu waxaan halkan u joogaa inaan wanaajiyo xidhiidhka Maraykanka iyo Afrika laakiin hadalladan oo kale waxay sii adkeynayaan hawshii aan hore u soo qabanay. To try and continue to hay'adda wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson uu sanadkan booqan doono qaaradda Afrika arrintaasi oo ay soo dhaweysay danjiraha Midowga Afrika u joogta Washington. intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka qubanaha oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta. intaan dib u kulmi doono toddobaadkan dambana waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.